weligaa ma aragtay diyaarad iyadoo holcayso hawada ka soo dhacdo? maanta waxa ayaan ka hadli doonaa arrin oo aad cajiib u ah. sidaad ula socoto arrintaas ama maanta mawduucan ka hadli doono waxa ayaad samaysaa kusoo biir channelkan subscribe saar. assalaamu calaykum, waa pilot shute oo nii soo gudbinayo baaritaanka diyaaradaha iyo dhammaan wixii ku saabsan duulimaadka iyo diyaaradaha. May 4, 2020 waxa ayaa ku burburay garoonka Bardaale diyaarad ee leedahay shirkadda African Express. diyaarad oo nooceedu yahay Embraer 120, registrationkeedu wuxuu ahaa 5 Yankee Alpha X-ray Oscar. diyaaraddaas waxay ka soo kacday garoonka Shaati Gaduud ee ku yaalo magaalada Baydhabo. diyaaraddaas waxa ayay waday mucaawinaad oo ah coronavirus aid ama lagula dagaalamayay coronavirus. diyaaraddaas waxaa soo ijaartay qolo NGO ama non-profit organization. waxa ayaa saarnay diyaaraddaas 6 qof oo kala ah 3 passenger oo ahaayeen dadkii diyaaradda soo ijaarteen oo wada mucaawinaadka, iyo 3 duuliyaal. 1 duuliyo oo gadaal fadhiyay oo kursiga sugayay oo tababarkiisa soo dhameystay, iyo kabtanka iyo ku-xigeenkiisa. diyaaraddaas waxa ay ka soo kacday Baydhabo markay ahayd saacaddu 9:33 galabnimo waqtiga bariga Afrika. diyaaraddaas waxa ayay ku soo socotay garoonka Bardaale. diyaaradaasu markay 5 kilomitir u jirtay garoonka Bardaale, saacaddu ahayd 4 galabnimo ama 10 saac Bardaale, waxa ayay la kulantay gantaal ama ground to air missile oo lagu soo gamay. duuliyaasha ayagoo ka warqabin oona fikrad ka haysanin waxa socdo, holac iyo dhawaaq xoog leh ayay la kulmeen. diyaaradduna kontaroolka ayaa ka dhumay iyadoo hawada marayso. way isku dayeen inay garoonka ku soo aadiyaan, laakiin holacii iyo dabkii ka socday daraaddiisa diyaaraddaas uncontrollable ayay noqotay ama diyaarad kontaroolka ka dhumay. diyaaradda siday u soo socotay iyadoo holcayso oo dab ka socdo ayay dhulka sida dhagax camal ugu soo dhacday. dhammaan dadkii saarnaayeen diyaaraddaas meesha ayay ku dhinteen, diyaaradduna meesha ayay ku burburtay. marka reportka ayaa soo gudbinayno waxaa waaye su-aalo ayaa laisweydiinayaa. diyaaraddaas yaa ku dhuftay gantaalka? gantaalka waxaa ku dhuftay oona ka cudur daartay ciidamo military oo Ethiopian ah. ciidamahaasna kama mid ahayn ciidamaha peacekeepingka ama nabad sugidda oo African Union ama midowga Africa kama mid ahayn. waxay ahaayeen ciidamo outsiders ama oo shisheeye ah. okay, anagoo siyaasadda aad u sii dhexgelaynin, waxa kaliya oo nooga muuqan karo meeshaas in qalad dhacay, wayna ka cudur daarteen qaladka. marka sidee ayaan uga hortagi karnaa shilalka noocaas camal ah? shilalka noocaas camal ah Soomaaliya lagama sheegin weli, waa 1 ama 2. hadda ka hor qolo oo ayakana hadda ka hor muuqaal ayaa soo sheegay, inta ayaa ku arki doontaa, ayaa saas sameeyeen hadda ka hor keliya. laakiin Soomaaliya gudaheedu waxaas kama dhicin 2 mar ka badan. marka sida ayaan uga hortagi karno shilalka noocaas camal ah, dhammaan ciidamadu oo Soomaaliya ka howlgalaan in oo loo sheego oona loo sharaxo
diyaaradaha passengerka ah iyo diyaaradaha kaleeto inay kala kasayaan. diyaarad passenger wado qori ama hub oo hawada oo dagaal ah laguma xiri karo, mana noqon karto diyaarad oo threat ah ama diyaarad oo argagax wado. tan kaleeto diyaaraddu waxay sheegeen reportka waxa ay sheegeen in diyaaraddaasi dhulka kusoo dhawaatay oo diyaaraddii looga shakiyey in diyaarad military ama ciidan ama diyaarad oo argagax wado inay tahay ama diyaarad isburburi rabto inay tahay. diyaaraddu sida ayaan duuliyaasha ama aviationka u ogyahay markay diyaaraddu ku deganayso garoomanka warto waa labo garoon. maxaa jiro la dhahayo manned aerodromes ama garoon controlan iyo unmanned aerodrome, garoon aanan control lahayn oona laami lahayn. garoomanka nooca oo controlka lahayn duuliyaashu waxa ay tababar kusoo qaateen intaysan degin ka hor in diyaaraddaasi dhulka loo soo dhaweeyo oo garoonka la iska fiiriyo, kadib la kaco go around la sameeyo oo positioning for final again inaad samaysid sidaad u imaatid adigoo garoonka iska hubo oo og tahay in garoonka aad ku degan kartid. sidoo kale akhyaaraya waxaa soo gaarnay muuqaalkan qaybtiisa ugu dambeysay. haddaad ka heshay muuqaalkan oo rabto in muuqaalo noocan camal ah inaan kusoo kordhino channelkan, waxa ayaad samaysaa like, share, subscribe saar channelkan. Peace out.